bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa janalka xogta miidiya waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono khasaarooyinkii farmaajo ka soo gaaray dagaalkii uu la galay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble falaqeyn ayaa daawadayaal ku sameyn doonaa warbixintan ayaana idinkugu soo koobi doonaa ha yeeshee inta aanan guda gelin waxaan daawaday kaa dalbanaya oon kaa codsanayaana muuqaalkan laag saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saariyo janalka oo furanaya gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawade waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi kasii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhammaaday Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa isqabtay laba jeer muddo ka yar 120 cisho khilaafka labada nin ayaa sababay in uu Farmaajo laba jeer isku dayo in uu shaqada ka joojiyo ra-iisul wasaaraha laakiin kuma guuleysan maadaama uusan jirin qodob dastuuri ah oo xaq u siinaya talaabadaasi dagaalka labada nin oo wuxuu ka mid ahaa waxyaabihii sida weyn dib ugu dhigay doorashadii dalka labada xiisadba waxay ka yimaadeen dhanka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo labada jeerba wuxuu Farmaajo difaacayay saraakiisha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee NISA dagaalkii koowaad wuxuu ka bilowday difaaca Fahad Yaasiin Xaaji Daahir dagaalka labaadna wuxuu ka dhashay kursiga Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey taasoo muujinaysa sida ay xubnaha NISA muhiim ugu yihiin Farmaajo haddaba warbixintan waxaan ku eegaynaa waxa Farmaajo uga khasaaray labadii dagaal ee uu la galay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble dagaalkii koowaad Farmaajo wuxuu waayay oo xilkii laga qaaday taliyihii NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir hay'addii ayaana sumcad ahaan u burburtay waxaana Farmaajo lagu tuhmay in isaga uu wax ka og yahay kiiska Ikraan Taaliil Faarax Farmaajo wuxuu dagaalkii koowaad ku waayay wasaaradda amniga wasaaraddan ka hor inta uusan dagaalka bilaaban waxaa joogay Xasan Xundubey oo dhanka Farmaajo jiray laakiin markay xiisadu qaraxday waa la bixiyay Xasan Xundubey waxaana la keenay wasaaradda Cabdullaahi Maxamed Nuur taasi oo dhanka ra-iisul wasaare Rooble marisay wasaaraddaasi muhiimka ah heshiiska labada nin ee lagu xalinaya khilaafkoodii koowaad xubnihii dhanka Rooble ka socday waxay heleen xilal sida Bashiir Goobe oo wasiiru dowlad qaatay iyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo la siiyay mid ka mid ah la taliyaashii ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waa hay'ad kale oo muhiim ah oo dhanka madaxweyne Farmaajo gacantooda ka baxday nabad sugidii oo ay wax badan gacanta ku hayeen kooxda madaxweyne Farmaajo waxaa lagu heshiiyay in taliyaha loo magacaabayo uu noqdo qof ay labadan dhinacba ka heshiiyeen Rooblena uu keensado qofka noqonaya ku-xigeenka ilaa hadda taliye rasmi ah looma magacaabin hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee NISA haddii uu Farmaajo kaligiis iska magacaabana waxaa laga baqayaa in uu Rooble diido hay'addan inkastoo ay weli awood ahaan dhanka Farmaajo jirto haddana in darafka lagula dhago ayaa ka mid ah khasaarooyinkii Farmaajo ka soo gaaray dagaalkii koowaad ee uu la galay Rooble dagaalkii labaad ee bishii la soo dhaafay ee welina aan la xalin waxaa isna Farmaajo uga lumay wax badan oo muhiim ah waxaana ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga markii uu dagaalka labaad qarxay ra-iisul wasaare Rooble wuxuu bedelay wasiirkii gaashaandhigga Xasan Xuseen Xaaji oo dhanka Farmaajo ka socday wuxuuna keensaday jaamac oo dhankiisa ah taasi waxay ka dhigan tahay in dhammaan wasaaradaha qaabilsan amniga laga bixiyay gacanta madaxweyne Farmaajo dagaalkan labaad wuxuu Farmaajo ku waayay 7 xubnood oo ka mid ahaa guddiga xalinta khilaafaadka kuwaasi oo dhankiisa ahaa balse uu shaqada ka eriyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaana xubnaha la eriyo ku jiray gudoomiyihii guddigaasi sidoo kale wuxuu Farmaajo dagaalkan labaad ku lumiyay gudoomiyihii guddiga doorashooyinka ee federaal Maxamed Xasan Ciro kaas oo dhankiisa ka socday waxaana shaqo ka eriyintiisa loo adeegsaday xubnaha guddiga haddana hogaankii guddigan waxaa qaatay xubin dhanka Saciidani ka socda khilaafkan labada nin u dhaxeeya waxaa sidoo kale lagu ogaaday in maamuladii uu Farmaajo isku haleynayay in aysan wax badan u tari karin markii ay garab istaagi waayeen shirkii uu iclaamiyay waxay ahayd xaalad lagu ogaaday in uusan hadda sidoo kale u awood badnayn
imaaraadka carabta uu farmaajo albaabada Soomaaliya ka xiray ayaa dariiq cusub helay intii uu jiray khilaafka. waxyaabahaasi oo dhan waxay dad badan qabaan in laga badbaadi karay haddii uusan farmaajo geli lahayn dagaalka Rooble oo aan isagu waxba ka khasaarin maadaama uusan musharax ahayn. Rooble xubno guddi ah ma haysan, wasaarado muhiim ah ma haysan, taliyayaal iyo hay'ado muhiim ahna ma haysan. marka la joogo siyaasadda in aad raadsato dagaalka qof aan waxba gacanta ugu jirin waa calaamad muujinaysa in aad u bareertay in xisaabtaada qayb laga qaato. saaxiibada madaxweyne Farmaajo qaar waxay qabeen in intaasi oo khasaaraha laga badbaadin karay kooxda, laakiin lama qaadan taladooda. intaasi waxaa dheer dhaawaca soo gaaray xagga sumcadda iyo rajada doorashada. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media. haddii aad daawatay warbixintan like inoo saar, subscribe inoo saar channelka Fura Gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiya commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo warbixintan mid la mid ah inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.